gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhawrista tayada Somaliland Xamse Cabdi Ibrahim Xamse Qorcade ayaa kormeeray xafiiska hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer waxaana uu halkaasi kulamo kula qaatay shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer kulamadaas oo lagaga wada hadlay dardargelinta iyo sidoo kale xoojinta shaqada ay hay'adda dhawrista tayada Somaliland u hayso bulshada Somaliland ugu horreyn waxa kulankaasi ka hadlay siduwaha hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer Cabdi Fataax Axmed Maxamed Hurre waxaana uu gudoomiye ku-xigeenka uga mahadnaqay kormeerkaasi iyo sidoo kale kulamadaasi uu la qaatay shaqaalaha iyo howlwadeenada hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer horeyn waxaan soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'adda dhawrista tayada oo maanta nagu soo booqday xafiiska hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer mudane Xamse Cabdi Ibrahim waxa la gudoomiye soo dhawow xafiiska hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno gudoomiyaha runtii waana nin dhalinyaro aqoon-yahan oo runtii wax badan aan ka filanayno insha Allah inuu soo kordhiyo sidaan ula shaqeyn jirnay gudoomiyihii hore ayaan insha Allah taala ula shaqeyn doonaa gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka cusubba gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhawrista tayada ee Somaliland Xamse Cabdi Ibrahim Xamse Qorcade ayaa dhankiisa shaqaalaha kula dardaarmay inay ilaaliyaan isla markaana ay laba jibaaraan shaqada ay u hayaan qaranka Somaliland isagoo ka warramay waxyaabaha lagaga hadlay kulankaasi uu la qaatay shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer maanta oo taariikhdu tahay 12 bisha July 2022 waxaan ku faraxsanahay inaan kormeer ugu soo baxay xafiiska hay'adda dhawrista tayada qaranka runtii xafiiska aan ku cusubay anigu kulankeygana wuxuu daaraawan kow isbarasho iyo laba inaan u kurgalo xaaladaha ay la nool yihiin ama baahiyaha xafiiskan runtii ka taagan waan isxog wareysanay wixii ay baahi ama tabasho jirtayna waan wadaagnay hadii ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa intii suuragal ah in sida ugu dhaqsaha badan leh aan uga howlgalo marka aynu ka shaqeynayno maxaan ku dhahday dhawrista tayada markaynu ka hadlayno ama quality control markaynu ka hadlayno waxyaalaha muhiimka ah ee budiga shaqadeena wax kamid ah marka hore inaynu nagu tayeysanahay marka hore shaqaalaha xafiiskan ka shaqeynaya inay iyagu tayahaan iyo qalab ahaan inay aqoon ahaan iyo agab ahaanba inay iyagu tayeysan yihiin marka arrimahaas ayaan xoog isla saarnay sidii wax looga qaban lahaa waxaan u rajeynayaa ama aan ka codsanayaa shaqaalahan runtii aan laantooda aan shaqo socoteen in ay maxaan ku raadin duruufaha adag inay taan waxa jira shaqaale qaranka u shaqeeya oo iyaguna saas oo kale xaalado kuwan ka sii qalabsan ku shaqeeya oo mushaharkoodu yar yahay maxaan gunooyinkoodu yar yihiin oo hawlo aad iyo aad ugu culus yihiin waxa loo wada dadaalayaa inay tahay in makaranteena dalkeena dhisano si ubadkeena naga dambeeya iyo mustaqbalka dadka soo kacaya ay u helaan iyagu maartay adeegyo runtii dhameystiran marka runtii waxyaalaha anagu maamulkeena cusub hadii ilaahay ka dhigo aniga ku hadlaya kayga iyo maamulka cusub magacayga iyo magaca maamulka gudidan cusub ee madaxweynuhu magacaabay in aanu hadii ilaahay ka dhigo si aan baqaadno halkii hay'addan la soo gaarsiiyay Khalil Barawran TV-ga qaranka Somaliland Burco